السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتي يقول حيران كوا يقول عصب دمانتين السود وهذا ومركلة يمقال عصب بليس ديك وطاي مركوات أيتي مادت سبسكراب إيسار إيلاي جري أصحاب تاذنا وشير جري أولا دا إلى تشوكتني إيلاي جري سين شير جري مقال كان سيو جاره ينبضن وأباهن موضوع يدان موضوعا ما أنت أكهل دونه وموضوع مهم وأهوي كستو أو هيستو ilmo socod bilow ah ama socod barad ah ama ku jiro xilligii ay socod lahaayeen balse ka daahay hooyooyinka waxaan rabaa dhowr waxyaabo oo aad u caawi doono in aan u sheego maanta rabbi haduu idmo caruurta horta marka ay gaaraan waqtiga socod baradka waxaa aad muhiim ugu ah in ay helaan fitamiino isku dheelitiran oo jirkooda ka saacido inay socdaan waqtiga ilkaha ay u soo baxayaan oo kale waxaa muhiim ah in ay helaan fitamiino ka saacidayo inay ilkahaas u soo baxaan mar walba cunugaaga wuxuu u baahan yahay sanadka 1 ilaa 2 sano uu ka gaarayo fitamiino qaas u ah caruurtaas oo aad u weyn aysan uga maarmin ilmo badan oo waxaa jira aad fitamiinadaas uga yar ilka aan u soo bixin waxaad arkaysaa ilmo jiro sanad iyo 4 bilood wax ilka ma laha haday u badato 2 ilkood leeyihiin fitamiinadooda aad ay u hooseeyaan ilkaha fitamiino ka qayb qaato soo bixitaankooda jiro iyo in ilka caafimaad qabaan ilmaha u soo baxo oo qawi ah markasta marka hooyooyinka waxaa la gudboon inay aad ula socdaan waxyaabahaas oo aad ku caawinayo waxay yihiin si wacan ay u dhageystaan markasta waxaan jecelahay waxyaabaha waxtarka leh aan isdhihi karo wax badan laga faa'iideeyaa ama hooyooyinka way u baahan yihiin in halkaan aan igu soo gudbiyo saali ajligeeda maantay fiidiyogan wuxuu quseeyaa caruurta fadhi baradka ah kuwa ilka u soo baxayo kuwa xabadka ku socdo kuwa gurguurinayo kuwa istaagayo laakiin istaagooda daahay ama naaqus ka noqday mar walba hooyo kasto waxaa la gudboon inay aad u isticmaasho waxyaabaha caruurtaas ay ka heli karaan fitamiinaadkaas dhameystiran waxyaabahaas waxaa kamid ah ama fitamiinaadka ka qayb qaadan karo caruurtaada inay socdaan ama ay ugu soo baxaan ilka caafimaad leh ama ka qayb qaadan karo cunugaaga waqtiga gurguurashada uu ku jiro inuu si nabad ah ku gurguurto ama uu ku fariisto waxaa kamid ah calcium in cunugaaga uu helo calciumkaas waxyaabo badan oo ilmaha aad u caawinayo ayaa ku jiro sida ilmahaaga in si nadiif ah uu u socdo awoodna uu u yeesho ilka caafimaad leh inay u soo baxaan cunugaaga mar walba inuu noqdo cunug fitamiinada jirkiisa ka maqan u dheelitiran marka uu helo waxaa jiraan daawooyin ama goojooyin ilmaha aad u caawiyo oo ku jiro calciumkaas ama vitamin D-ga ku jiro caruurta 4 bilood maalinkii jiraan ama xilliga ay dhashaan lagu bilaabo ilaa 2 sano ilaa 1 sano la siiyo waxa kale oo aad ku saacidayo oo ilmaha maadooyinka sorta ka maqan ee la socod karin waxaa kamid ah caruurta calciumka cunugaaga inuu ku yaryahay iyo in uusan haysan vitamin D-ga waxyaabo badan ayuu caruurta ka caawiyaa ay ugu horeedo socodka ama fadhiga ama gurguurashada waqtiga ku jira cunuga ha noqotee markasta marka isku day hooyo hadaa tahay ilmahaaga in aad siidid fitamiinadaas fitamiinada hadaad rabin ama aadan heli karin uma maleynaya meel laga heli karin in la joogo waxaan jeclahay meel kasto in laga heli karo vitamin D-ga hadii aad weydiisid dhakhtarkiisa wuu ku qorayaa cunuga farmashiyaalkana waa lagu gadaa vitamin D-ga iyo calciumka goojooyin ku jiro oo caruurta la siiyo waxa marka muhiim ah hadaad siineynin aadan u rabin daawo inaad siidid in ilmahaaga lambar 1 cuntada aad ka saxdid oo aad siidid cunto u badan calcium iyo vitamin D oo ka helo maalinkii ugu yaraan hal mar inuu ka helo waaye mid kale waxa aad ku saaciday waxa kamid ah in aad cunugaaga u sameedid qoraxda subaxii hore markay soo baxdo in aad geesid aad ku socodsiidid galabkii markay sii dhaceysan sidoo kaleeto aad siidid macnaha aad ku socodsiidid hadaad joogin meel qorax fresh ah aad ka heleenin fitamiinaadka iyo cuntooyinka ayaa ku dheelitirayo u sameeyso guriga dhexdiisana ku socodsii beebigaaga waxyaabaha marka ka saacidi karo kaleeto calcium badan cunugaaga inuu helo
fitamiin D inuu helo oo ku filan. Waxaa ka mid ah waxyaabaha loo yaqaano liin macaanta ama liin oranjiga, aad u weyn ayay kor ugu qaadaa ilmahaaga fitamiinaadkaas ka maqan oo aadka u saacidi karo, iyo calciumka. waxaa ka buuxo calcium liin macaanta. ilmahana waxaa u haboon sidooda marna in loo miiro oo looga dhigo inta loo shiido juice, marna inta loo jarjaro la siiyo. fitamiino badanaana ku jira, fitamiin C xitaa wuu ku jiraa. marka isku day hooyo hadaa tahay in waxyaabaha laga heli karo fitamiinaadkaas calciumka iyo fitamiin D-ga aad u siidid caruurtaada socodka haduu ku liita ama fadhiga uu ku liita ama ilka u soo bixin. waxa kaleeto ku saacidi karo sabiibka nuucu doona ha ahaado, inkastay ugu si fiican tahay midka madow, mashmashka iyo tiinka la qalajiyay. meel walbana waad ka helaysaa oo lagu gado waxyaabaha qalalan ama loo yaqaano miraha fitamiinaadka leh. waxa kaleeto ka buuxo fitamiin D-gaas iyo calciumka aad ka heli kartaa digirta noocyadeeda kala duwan. inaad ilmahaaga aad cuntada aad siineedid ugu dirtid mar walbo si uu cunuga caawinaad badan oo ugu helo, jirkiisana uu noqdo jir dhameystiran, fitamiinaadkii uu u baahnaana uu ka helo. isku day marka in aad sameydid anwaacda u kala baxaan digiryada mar walbo, in asbuuci aad u samey kartid. qudaara loogu dhex daraa, waana loo ridqaa ama waa loo shiidaa. marka mar walbo fitamiinaadka caruurta ma ka maarmaan. mar walbo waa waxyaabaha kor u soo qaadi karo caruurtaada hadday socodka ay gabeen ama socod bilow uu yahay cunugaaga, balse uu ka daaha socodka waqtiga loogu talagalay. aad ayay ku caawi doonaan calciumka iyo fitamiin D-ga. waxaan rajeynayaa waxyaabo badan wax ka faa'iidaan mar walba inaan ii soo gelsho oo aad nii caawiyo, sida hooyo kasto in baahiyaheeda guud ee halkan ay ka hesho, kabacdina ay ka duceyso, kadibna ay ku dhaqanto, ay aragto waxtarka meeshan ay u leedahay hooyo walbo. waana ku faraxsanahay run ahaantii hooyooyinka sida quruxda badan ee mar walba igu soo duceeyaan, kalsoonida badan ay ii siiyaan, soo dhaweynta quruxda badan ee iigu sameeyeen, muuqaalkayga ay mar walba u sheer gareeyaan, like ay iigu caawiyaan. maasha Allah waa ku faraxsanahay. ilaahay ajir badanna hanaysiiyo oo haniga amaal mariyo haduu rabbi idmo. waxyaabaha aadka ku saacidayo kaleeto waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana cadaska. maasha Allah waaye, waxaa ka buuxo calcium, maadadaas ayaa ku jirto. ilmahaaga waa inaad u sameysan kartid fitamiinkaas si aad uga heshid calciumkaas oo lafihiisa cunuga iyo awoodi socodka kaga qayb qaadan karo mar walbo. in ilmahaaga ay noqdaan ilmo socdo ama fariisto ama ilka caafimaad leh uu soo baxo cunugaaga. isku day marka waxyaabaha mar walba waxyaabaha faa'iidooyinka caruurta ay ka helaan ama calciumka iyo fitamiin D ama fitamiin D, waxyaabaha loo yaqaano ay ka heli karaan oo waxyaabaha ay u baahan yihiin caruurta lama huraan ay u tahay inay helaan. waayo kaas haduu ku yaryahay cunugaaga waxawaaye noloshiisa ma noqonayo mid qurux badan. isku day marka in ilmahaaga aad u sameydid waxyaabahaas ay ka heli karaan calciumka iyo fitamiin D-ga si cunugaaga uu u noqdo cunug mar walba la jaan qaado caruurta da'diisa ah. waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo ku dhahayo ilmaheena ma socdaan sanad iyo 4 bilood, sanad iyo 5 bilood oo jiraa, socodkii uu ku daahay. waxa sameeyo ma aqaano. waxa ka maqan waxay tahay cunugaaga calciumka inuu ku yaryahay, fitamiin D-ga inuu ku yaryahay, adigana aad u sameynin wax caawitaan ah. haday noqon lahayd fitamiin caadi aad u siidid, iyo haday noqon lahayd cuntooyinkii uu ka heli lahaa fitamiinaadka in aadan siinin oo aad ka gaabisay. waxyaabaha had iyo jeer ku caawi karo waa waxyaabahan maanta aan kuu soo gudbiyay, ka faa'iideysa marka. waxa kaleeto sidoo kale ku caawi karo malaayga salmonka loo yaqaano, ukunto kaleeto qaybta yelowga ah waxaa ka buuxo calcium aad u weyn ugu baahan caruurta ayaa ka buuxo. isku day cunugaaga inaad u sameydid 6 bilood haduu jiro xitaa yelowga waad sii kartaa oo malahan wax allergic ah ama xasaasiyad ah malahan. waxaad sameynaysaa ayada iyo yogurt ayaa isugu ridqay, kabacdi waa u dubaysaa, ama hadii kaleeto kaligeed ayaa u karine waad siinaydaa cunugaaga. maasha Allah tabaaraka raxmaan, wuxuu ku noqonayaa cunug awoodiisa sareyso oo kaala arag ah. waxa kaleeto ku caawi karo waxyaabaha loo yaqaano caanaha fadhiya laga sameeyo, waxyaabaha farmaajooyinka laga sameeyo
ama yoogadka si wacan ayay uga qayb qaadan karaan fitamiin D-ga ama calciumka. Isku day marka cunugaaga in aad siidid mar walbo markastana waxyaabaha kula gudboon oo ilmahaaga inaad u sameydid wacan waaye si aad u heshid ubad caafimaad qabo oo calciumkiisa iyo fitamiinaadka ka maqan u dhamaystirmo. waxaa kaleeto ku caawi karo lowska maasha Allah tabaaraka raxmaan kaala arag waaye fitamiino badan ayaa ka buuxo. waxaa kaleeto ku caawi karo broccoliga asagana calcium ayuu waxaa kaleeto ku caawi karo koostada ayadana maasha Allah tabaaraka raxmaan aad ayay u fiican tahay. waxaa ku jira calcium maadooyin caruurta jirkooda u baahan ayaa ku jiro waxyaabo badan oo waxaa jiro aan iska yareysano laakiin aad u weyn uga qayb qaadan karo caruurtaada koriimadooda. isku day marka inaad noqotid hooyo active ah mar walba jecel ilmo caafimaad qabo ama ubad caafimaad qabo. mar walba ilmahaaga haddii aad ugu dadaashid waxyaabaha fitamiinaadka u leh calciumka ay ka heli karaan waxawaaye mar walba cunugaaga uu ku caafimaad qabo maqaarkiisa iyo jirkiisa iyo lafihiisa oo idin ay isla socdaan. isku day marka in aad u sameydid ilmahaaga waxyaabaha aadka u caawinayo si ay u gaaraan meel sare oo caafimaad leh. ilaahayna caafimaad ha ugu daro dhammaan awlaadeena awlaada muslimiinta dhammaan Allah xafido meel walba ay joogaan. inta xanuunsanna ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka ka dul qaado intii hooyo murugaysan murugada Allah ka qaado. waxawaaye adduunka waa iska imtixaan laakiin mar walba alxamdulillah waa inaad tiraadid si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuugu siyaadiyo nimcooyinka agtiisa yaalo. intaan ayuu horta cashirkeena ku egyahay maantay. waxaan israaday hooyooyinka maadaama mar walba ilmihii ay leeyihiin ilmihii ma socdaan ilmihii waxbaa ka qaldan uga faa'iideey mowduucan si hooyo walba ay uga hesho faa'iido. marka muuqaalka intaanu ku egyahay bilis haday ku tahay mar koowaad ay timaadid iyo awlaada ay la joogtay ilaa garay muuqaalka si meel sare uu u gaaro hooyo adoo kaleetaan ay uga faa'iido wax badan. waxaan rajeynayaa hooyooyinka halkan wax badan inay ka faa'iideen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.